Waxaa jira waxyaabo badan oo la wada isticmaalo oo ay dadku wadaagaan inta badan ragga ama xataa dumarka sida qalabka yaalla meelaha timaxiirka ragga ama saaloonka dumarka iyo waxyaalo yaalla guryaheena. Haddaba waxaan idiin haynaa 10 shay oo haddii la wada isticmaalo keena cudurro halis ah. Ka hor inta aan gudagelin barnaamijka, like sar page-keena Somali Brothers waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo ku anfaca. Lambarka koowaad, burushka dawada ilkaha. Dawada ilkaha burushkeeda waxa ku hadha jeermiska isticmaalaha burushka. Markasta haddii aad la isticmaashid qof kale waxay kuu keeni kartaa cudurka af xanuunka iyo cirid xanuunka iyo cudurro kale oo ku dhaca cunaha. Lambarka labaad, libisteed ama libista badana waxa ay u badan yihiin in dumarka asxaabta ay wada isticmaalaan libista hal libis ah markay aadayaan aroos ama xaflado ama ay ku degdegsan yihiin meelo kale. Laakiin hadduu qof marsado libista oo qof kalena ka daba marsado waxa soo raaca jeermis ka yimaada dibnaha kaasi oo keeni kara xanuuno ku dhaca afka, ciridka iyo cunaha sidoo kale iyaguna. Lambarka saddexaad, daawada ilkaha. Isticmaalida qof kale daawadiisa ilkaha aad bay khatar u tahay. Marka uu qofka ilkaha mariyo burushka waxa ay taabataa burushkiisa ilkaha waxayna toos ugu gudbi kartaa jeermiska burushka kale. Lambarka afraad, sakiinta suuniyaha. Isticmaalida sakiinta suuniyaha ee qof kale sakiintiisa suuniyaha waxa ay keeni kartaa infection iyo caabuqyo ku dhaca meelaha la mariyay. Sakiinta waxa isticmaala inta badan dumarka oo ku qurxista suuniyaha. Lambarka shanaad, makiinada ama sakiinta lagu taaloogo timaha ee la wada isticmaalo waxay taallaa sidaan wada ognahay meelaha rayslayaasha. Bacteria ayaa ku hadha weliba haddii qofka lagu saro ama uu dhiig ka yimaado qof kalena uu isticmaalo waxay keeni kartaa halis caafimaad ama cudurrada halista ah. Lambarka lixaad, cidiya gurta. Cidiya gurta inoo taalla guryaha waxa badanaa inala isticmaala familiga oo dhan balse waxa cidiya gurta ku hadha jeermiska cidiyaha ku dhex jiray. Marka uu qof kale isticmaalo waxa ku hadhaya jeermiskiisii qofkaas isticmaalina waxa uu qaadi karaa jeermiskii uu qabay qofkii hore. Lambarka toddobaad, in la wada isticmaalo tuwaalka ama shukumaanka. Waxa laga qaadaa cillado ku yimaada maqaarka iyo jeermisyo sidoo kale infection iyo caabuqyo. Lambarka sideedaad, kareemka shiirka ee qof kale leeyahay. Haddii aad marsato waxa uu leeyahay khatar caafimaad waayo kareemka waxa uu soo wada taabtay labada dhidid ee labada qof kaasi oo keeni kara caabuqyo cuncun ku dhaca maqaarka sare ee qofka. Lambarka sagaalaad, saabuunta hudheelada. Inta badan hudheeladeena waxa yaalla saabuun lagu talagalay in lagu falaxasho kadib marka la cunteeyo kaas oo marka uu qof ku falaxasho mid kalena kaga dambeeyo waxaana ku hadha jeermiska qofkii hore waxaana keeni kartaa inuu gudbo jeermiska qof ilaa qof kale. Lambarka tobnaad, earphone-nada yaryar. Earphone-nada yaryar ee caag ah ama burushka yar ku leh xagga hore marka qof kale isticmaalo waxa ku hadha bacteria taasoo markaad isticmaashid toos u fadhiisanaysa dhagaha aanad ka qaadi kartid cudurro ku dhaca dhagaha. Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka caafimaadka ee maanta. Soo booqo Somali Brothers. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.